لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم waxaan caawa kormeer shaqo u tagnay ra'iisul wasaaraha anaga taliyaha nabad sugidda iyo saraakiil kale kormeerkaas shaqo wuxuu ahaa inaan u kurgalno nabadgelyada magaalada Muqdisho kormeerka waxaan ka bilownay dhinacan madaxtooyo ilaa waxaan sii tagnay Dayniile koran soo dhaafnay Tareedisha dhinaca kale waxaan ka sii aadnay ilaa iyo Jasiira Kaxda meelahaas dhan kormeer ku sameeynay hadafkan wuxuu ahaa in ciidamada aan la qaybsano meesha ku nool yihiin iyo waqtigan qabowgaha inaan la qaybsano waqtigooda inaan soo aragno sidoo kale waxay ahayd kormeerkeena magaalada inaan maadaama mas'uuliyiintii aan nahay qaranka inaan iska jeefan inaan hore u balan qaadnay inaan marnaba aan seexana hore u balan qaadnay marka sidaas ra'iisul wasaaruhu magaalada marka shacabka Soomaaliyeed waxa ogaanayaan inaan hore habeen u taaganahay hadda waa 3 habeenimo salaada subaxa dhalan rabto waxaan joognaa ilaa iyo magaalada daafaheedan kormeer ku soo marnay in amniga magaalada waa sugnaa waxaan la karajeenaynaa subxaanahu wa ta'aala sida isku qurux badan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan amnigaas ay ku noolaadaan cadawgana meel kasta ay galaan kaga harmeeno waana dadaalna inta tabarteena daliyada subxaanahu wa ta'aala maastiin